الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. داودياشا قيمها له maanta waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamij gaar ah barnaamijkaas oo ku saabsan bayaankaas oo ka soo baxay shir lagu qabtay dhawaan ay soo jeediyeen golaha culimada iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee Yurub. bayaankani ujeedadiisu waxay tahay sidii dalka Soomaaliyeed loogu soo dabaali lahaa nabad waarta, isla mar ahaantaana looga badbaadin lahaa dagaaladii iyo burburkii saameeyay muddo ku dhow rubuc qarni, haatanna ay dib u heshiisiinta uga socoto dalka inuu walaalahanahay Djibouti. bayaankan wuxuu ka kooban yahay 10 qodob. qodobka koowaad, diinta islaamka waxay nafaraysaa inay waajib tahay in la taageero nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri: fattaqullaha waslihuu dhaata baynakum. qodobka labaad, shariicada islaamka iyo xeerarka caalamka oo dhan waxay ka soo horjeedaan in cid kasta ee diidan nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. nabigeena wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam: al-muslimu man salama al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. qodobka saddexaad, shariicada islaamka waxay xaaraantinimeysay wixii keeni karo xasiloona darro loo geysanayo ammaanka Soomaaliyeed. nabigeena wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam: la'ana Allahu man rawwa'a musliman. qodobka afraad, islaamka wuxuu xaaraantinimeeyay tuurista hubka iyo gantaalada la tuuraya aan la ogeyn meesha ay ku dhacayaan, taas oo sababta dhaawac iyo dhimasho badan oo loo geysanayo maatida Soomaaliyeed. nabigeena wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam: la zawaalu dunya ahwanu 'inda Allahi min qatl al-muslim. qodobka shanaad, waxaan ugu baaqaynaa firqooyinka nabadiidka ah in ay ka waantoobaan wadada shaydaanka ah, ayna raacaan wadada Ilaah, kana qayb qaataan dib u heshiisiinta ka socota ama ka bilaaban doonta dalka Djibouti. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo sheegay: was-sulhu khayrun. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri: was-sulhu khayrun. qodobka lixaad, islaamka wuxuu waajib nooga dhigay in aan midowno kitaabka Allah, kana hortagna firqooyinka nabadiidka ah oo baaqooda uu yahay dagaal baa dan noogu jirta. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri: wala tanaazacu fatafshalu watadhaba riixukum. qodobka toddobaad, dowladaha caalamka waxaan ugu baaqaynaa kana codsanaynaa in loo aqoonsado firqooyinka nabadiidka ah dambiilayaal dagaal, ummadda Soomaaliyeed ay ku taageeraan sidii ay firqooyinkaasi ay iskaga qaban lahaayeen. qaala Allah subxaanahu wa ta'aala: wa ta'aawanu 'ala al-birri wa taqwa. qodobka sideedaad, ummadda Soomaaliyeed waxaanu ugu baaqaynaa si ay uga gudbaan marxaladan adag inay iscafiyaan, iskana iloobaan dhibaatooyinka isu geysteen, dibna u dhistaan wadankooda hooyo. qaala Allah subxaanahu wa ta'aala: والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. qodobka sagaalaad, dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ku sugan dalka dibadiisa iyo gudihiisaba waxaanu ugu baaqaynaa inay taageeraan baaqa golaha culimada iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee Yurub, bacdama culimadu ay yihiin maanka iyo maskaxda ummadda Soomaaliyeed.
قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قضاء كتبنا قالها علماء يا قوم يهندا سوماليد يوروب waxay mahad u soo jeedinayaa dawladda aynu walaalaha nahay Djibouti oo hogaaminayo madaxweynaha Djibouti bacdama uu had ijeer oo ku matqaan mashquulo oo waqtigiisana uu siiyo sidii ay nabadda u soo celin lahaa oo Soomaalidana iskugu soo dhaweyn lahaa nabigeena wuxuu alayhi salaatu wasalaam man ahsana ilaykum fakafiyuhu fa in lam tastati'u fad'u lahu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.